kulan ay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika isugu yimaadeen culimadiinka odayaasha aqoon-yahaniinta dhalinyarada iyo waxgaradka ka soo jeeda jaaliyada Ximin iyo Xeeb jaaliyada Galmudug State iyo dhammaan qeybaha bulshada Soomaaliyeed ee ka soo jeedo gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. kulankan ayaa waxay si naxariis leh uga codsadeen culimadiinka odayaal dhaqameedyada aqoon-yahaniinta iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Galgaduud inay u istaagaan si hagar la'aan ah in la joojiyo dhiiga daadanayo iyo dagaalka ka soconayo deegaanka Dhagtuur ee gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya. ugu horeyntii ayaa kulankani waxaa furay injineer Cabdulqaadir Xasan Cilmi isagoo markaasi faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankani ee cidii soo qaban qaabisay. intaasi kadib ayaa kulankani waxaa lagu furay wacdi diin ah markaasi soo jeediyay Bashiir Cabdi Xasan isagoo ka hadlay cuquubada uu qofka ka dhaxlayo in uu dilo qof muslim oo walaalkiis ah. waxaa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiyaha jaaliyada Ximin iyo Xeeb ee dalkani Koonfur Afrika Shariif Maxamed Weheliye oo isaga oo markaasi ka codsaday walaalaha dagaalamaya inay si shuruud la'aan ah u joojiyaan dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanada Ximin iyo Xeeb iyo deegaanka Dhagtuur ee gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badanna la damiyo dabka colaadda ka dhaxshidan dadkaasi walaalaha ah. Professor Cabdulqaadir Cali Cigaal oo kamid ahaa dadkii goobta ka hadlay ayaa isna waxa uu sheegay in bulshada oo iskaashanayso ay u istaagi karaan sidii xal looga gaari lahaa in uusan sii fidin siina dheeraanin dagaalkan u dhaxeeyo beelahaasi walaalaha ah. dhibaatadii ka dhacday Dhagtuur ee gobolada Galmudug iyo Ximin iyo Xeeb. dabcan barnaamijkan isugu nimid wuxuu ahaa in aan maaragtay dadka walaalaha ku diriraya gobolka Mudug gaar ahaan Dhagtuur inaan baaq nabadeed u dirno kaasoo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xusuusinayno in ay maaragtay Ilaahay ka cabsadaan oo maaragtay dhibaatada iyo waxa jira ay dagaalka socda ay ku joojiyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay kaga cabsadaan. barnaamijka hadda dadka ka qayb galayana sida aad walaalkan Cabdulqaadir hadalkiisa ka dareemayseen Galmudug iyo Ximin iyo Xeeb kaliya kuma koobna waa ka ballaaran yahay dhalinyaro maaragtay reer gobolada dhexdooda ayaa jooga. waa barnaamij dadka walaalaha oo ay ka wada danqadeen in maaragtay dhibaatada meesha ka dhacday ayna rabaan cid walba inay codkooda gaarsiiso dadka walaalaha ee dagaalamaya inay dagaalka joojiyaan. sidaad ogtihiin meesha la yiraahdo Dhagtuur waxa ka dhacay dagaalo ayaa ka dhacay dadka qaraabada ah ee ehelka ah si walba walaalo ah dagaalkaas wuxuu keenay dad badan inay ku dhintaan dad badanna ay ku dhaawacmaan kulli hantiino ku jajabtay ku baaba'do. marka anaga barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay baaq nabadeed oo aan u dirayno dadka walaalaha in ay xabadda joojiyaan inaanay waxba ka faa'iideynin saddexda nooc oo bini'aadamku u walaaloobo ayay walaalo yihiin dadkaasi xaggii islaamnimada wadada muslimiina xaggii darisnimada oo meeshii wada degan yihiin xaggii maxaan ku iraahdaa walaaltinimadii kale ee quwada nasabka waa dad walaalo ah oo dadka Soomaaliyeed dadka isu xiga marka in dagaal noocan oo kale uu soo noqdo waa dagaal aad noo dalqinaya waa dhibaato aanan xamili karin. maalin walba hebel baa dhintay hebel baa dhintay baa leeyahay wuxuu ku dhintana garan mayno. كل ما نحن نحن هذا هل أكين بحيل جهاد إما سيأكين تال ريلو ولا يعني ولا جواد القضية. ميدا كان كسلهان وحماشة كان عوفي عن ماها وحين بقولي سا ومركيا هذا لسمي مالني دبي. ugu dambeyntii kulankani ayaa waxaa laga soo saaray qodobo ay ka mid ahaayeen in xabad joojin aan shuruud lahayn ay ku dhawaaqaan madaxda maamulada Ximin iyo Xeeb iyo kan Galmudug in la kala qaado ciidamada masaafo dhan 15 kilomitir si fursad loo siiyo bay yiraahdeen nabad wadayaasha iyo dhammaan qeybaha nabadda u taagan ee ka soo jeedo deegaankaasi in maamulada waa Ximin iyo Xeeb iyo Galmudug State ay ku dhawaaqaan in ay diyaariyaan gogol saamaxaysa in la badbaadiyo dhiigga dadka walaalaha ee daadanayo xalna laga gaaro colaadaha ka soo cusboonaaday deegaanka Dhagtuur ee gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya. gabagabadii kulankani ayaa waxaa tacsi loo diray dhammaan intii ku dhimatay iyo ehladoodiiba in samir iyo iimaan Allah ka siiyo geeridaasi ku timid kuwii ay jeclaayeen.
waxaa sidoo kale loogu duceeyey in alla dhaawaca uu saqiro intii ku dhaawacantay ayna ogaadaan iyaguna inuu alla jecel yahay maadaama uu ka badbaadiyey inay ku baxaan masiibadan ay ku dhaawacmeen oo ahayd mid xaqdarro ah oo ay ku doonayeen inay ku dilaan qof walaalkooda ah. cabdinaasir soomane, telefishinka caalamiga ah Universal TV, Johannesburg.